بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما kusoo dhawaada walaalaheena halka ka nagala socda CF bulsho channelka waxa adiga ku dhibaya ama arrinka ruuxiga ee xanuunka kuu soo saaraya daawadiisa ama cilaajintiisa ama fahamkiisaba ugu yaraan iyo arrimaha kale ee waxyaalahaasi nolosha hurdo iyo riyada la mid ah CF bulshada nagala socota ay kusoo dhawaada halkani waxaan uga hadli doonaa arrin khatarteeda leh dadka ilaahay markuu ilaahay siiyo nolol quruxsan jir quruxsan dhalinyaro iyo dadaal iyo agtafnimo ayaa balaayo lagu saladaa samankaana isagoo waxba la isku ogolay maxaa la sameynaya waxaa qofka lagu dirayaa haweeney ama jimad cajuuso ah oo qofkaasi suuradiisa bedesha idanka ilaahay laakiin wax walba idanka ilaahay bay ku socdaan ma dareemaysaa gabar yahay ama wiil yahow in duqnima ay ka muuqato xitaa naftaadu kuu sheegayso mararka qaarkood oo aad leedahay adigu maxaad ka raadinaysaa nolol waaba duq baad tahay haddaad dhimanaysaa 25 baad jirtaa 30 baad jirtaa 35 baad jirtaa ilaa 40 baad jirtaa waxaa lagaaga dhigaya inaad duq tahay jirkaadii baa isku soo laalaabtay kala dhacay oo kala daadaatay timihii baa daatay oo baaba'ay ilkihii baa jajabayo oo daadanaya markaa dhakhtar tartiibna wax uu kuu sheegaya ma jirto kaalmaanta yar buu kuu qoraya dhib kuma haysto ku leeyahay waxa iska ilaali wax natiija ma jirto ma qancaysid adigii fikri stress timahaadii waa jajabayaan waa baaba'ayaan ilkahaadii baa jajabaya si oo xanuunaya xataa qaarkood qarxaya iyo wixii la midka uurkaada iyo naftaada iyo jirkaada wuxuu kuu sheegayaa inaad duq tahay inaad cajuus tahay ma garanaysaa waxaasi waxa ka dambeeya wallahi waxa ka dambeeya mataqaan waxa ka dambeeya waxa weeye waa jimad sixir ama xasad ama il loo soo xil saartay oo adiga kula socota qofkii jirka lahaa ee ciyaarta dheeli jiray ee murqaha lahaa ee six pack ahaa ee sisi ahaa sanad 2 sano 1 sano iyo bar 3 sano ay isbedelayba qof kala daadsan jirkiisa duqnimo duuduub tutub cajis jacdad bala ka soo daahirtay waay kareen kastoo marsadana ma daahir ma wanaajinayo kii baa qarxaya xanuunaya isagii dhan fikir buu stress buu qaaday kala walaalkay walaashay anaa kuu sheegay ilaahay idinkiis annagu sabab kaleena laakiin ilaahay baa wax walba hirgeli وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين haddaan xaso allah yaafi male laakiin sabab arinta keenaya jira waxa weeye cajuusad jin ah oo isha xasadka ka timaada ama sixir loo soo xirsaaray oo kula soconaysa jirkaadana dhexgalaysa ilaa jinka sidiisaba dhiigaadu raacaya sida xabiibkeena uu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka quruxdaadana la duugaya la bedelaya gabar ku guursanaysa dhow ma jirto duqduq baad ka muuqdo dhalinyarada tahay labaatan jir baad fakane laakiin dadku markay ku fiiriyeen harag weyn baad ku saaran boo isbedel baa ku dhacay gabadhii sidoo kale cid soo daysa ma jirto qofkan il xoog la saameysay ama xasad baa ku dhacay ama waa la sixiro jin baa loo soo saartay habarta cajuusta baa dhex gashay dhex fadhida sababna waxa uu noqon kartaa isagii baa ilaahay dikrigiisii ka daahay xirimayo salaadihii gaga xuska ilaahay buu ka fogaaday ee dhex degtay marka saasaa loo suuradeynaya marka waxaan rabaa inaad ogaatid cilada xagga aad u tuuraysa maya waa xagga kale kaliya quraan saar ruqyada dhagayso cilaaj tag qof kale quraan ugu aqri istaawe iska gaar balaajinkaada dhex fadhida adigu isku akhri taaliisho tufo ku qubayso taaliish waxaana tiraahdaa allahumma zalzil كل شيطان عجوزة تدمر جسدي بإذن ربها إله القرير كري إله عذاب إله عجاها كتر عجوزة كستو شيطان وشركي كبابي إني سوق جرت رجعت مر بإذن ربها لكن إذن كإلهي إذن كربي جدوى
إلا إذن كلاهي وحنا يكون صعدان هوش مكتو وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ساحرين تلاهي كورمية فالك وضحن قف إنسانكم اللي بكران إلا إلهي نكو امتحام يمويا مركا الله بحق سفر الجرح الكلمة جرمك اللهم زلزل كل شيطان عجوزة تدمر جسدي بإذن ربها اللهم زلزل ودمر ودمر وعذبها كل شيطان عجوزة كل شيطانة عجوزة تكيك جرتوها waxaana dhan suuradaynaysa haddii marka ruqyada ay saartid oo iscilaajisid oo isdaaweysid oo ducooyinka akhrisatid oo allah baridid ilaah baa wax walba hirgelinaye yani isbedel baa kugu imaanaya waxaad arkaysaa riyooyin tiro badan haweeney baa riyo kugu imaanaysa si ah markaas waxaa ku leedahay maxaad ii habaaraysaa ma iska kaydaysid maxaan kuu dhim aad maqlaysaa waxaad arkaysaa dadku ibhinaya yani dad ku dacweynaya ka ashtakoonaya aad maqlaysaa riyooyin baa lagu tusayaa rubama laga yaabaa marka insaan suuradiisa in qofkan loo yeelay waxaan waa wax ay shayaadiinta iyo ibliiska iyo jawanku adeegsadaan ama waxaa laga yaabaa habeeso iyo masas iyo balaayo suuradeed in lagu tuso waxaanu dhan wax jinku adeegsanay jinku noocyo badan buu leeyahay qaara abeesooyinka qaara ka mid ah abeesooyinka arkaysaa ولذلك رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري هذا أبيسوين كجريها كو أركتان إبهي هدليننا شن إنه يها لغيا وعترى هذا جريه يقبح بس قبح حيس مربي أبيسوين كمصاص سبتلا جمنكو قار مركا أذكاري الدعاء كذا شنكو ضعيف شيطانكو ضعيف وخناس مركو إن يركع أركو إلهي ذكري استقفلت كذي بوكو كشان هي هوشة حسد بانا wax walba baabinay wadadka maxay u xastayaan ilaahay fadligiisa ma ka xastay xasadkan iyo ishaan xoog badan oo muuqaal horena uga waranay baa waxaan keenay mar hada aragtid xanuun ruuxiya oo mid ah tusaale kale il kuwa kale daris bilay waa imaanaya xasadkii ma imaanaya jinkii ma imaanaya sixirkii ma imaanaya balaayo ma imaanaysa hal cudur ruuxiya haduu kugu dhaco kuwa kalena way soo badanayaan imaanaya marka waa la iska afxiraa إلهي حسدكو عمباري يوح كسو كردشا حسدكو واتلمامها منافقين إلهي بالغا مغنقلا ودنبي قوغوه الرئيو ألا لغو عاسيي سمد التحرير ودنبي قوغوه الرئيو دولك التحديث هدنا لغو عاسيي مؤمنكو صحيحة يا السغاني حاسد من نقضو وليس إنسان يقفك بلا آدم كخير إنو كسوغيا كسولي ميو إلا إنتو سن وحسدين لذلك رسولك إلهي محمد عليه الصلاة والسلام نقرر dadka dad ugu fadli badan waa dadka xaqdiga iyo xasidnimada ka madax banaan oo ka calolfiyo dhibaatooyin baa waxaan keenaya dadku inay tartamaan si xun u tartamaan islaayaan isgooyaan isku xanaaqaan kala fogaadaan malaxun kala qaadaan isxantaan war xumo tashiirka dhexdooda uu maro iyo wixii la midka yaa waxa keenaya intaan waa xasidka waa isha waa urxumada waa xaqdiga iyo balaayada nimcooyinka ilaahay kugu xastayaan aqoontaada iyo caqligaada kugu xastayaan maalkaada kugu xastayaan mansabkaada kugu xastayaan sharaftaada kugu xastayaan wanaagaada kugu xastayaan marka waa la iska ilaaliyaa waxaas oo dhan waa la iska ilaaliyaa ibliis baa xaasidiinta madax u ah oo ina aadankii walaalkii dilaa ka mid oo waxa ka mid mid kastoo ilaahay beeniyay oo waxa ka mid mid kastoo iimaan la oo waxa ka mid mid kastoo munaafiq oo waxa ka mid mid kastoo isku kalsoonay oo waxa ka mid mid kastoo ilaahay adoomihiisa nabadgelinaya xaasidiinta walaalayaal iskarab qabta insha Allah ta'ala waxaan arkaysaan markay noloshiina bedelay jirkiina bedelay quruxdiina bedelay ee jirkiina isku soo dhixrida isku daadiyay waa jin kula socday jirkaada kadib fursad qaaday galay marka khanaasnimadaas marka waa adeeg balaayo ku adeegaya il xasadeeda xoog badan sixir buu adeega u yahay iska jijabay marka iska baabi'ay marka ruqyada ku qubayso xab sisaar ayadka ilaahay cuskada aad baan u mahadsantiin وقالكاس ربنا إنكو حصو حلقة كان تيمها تجابي سببت اللي فهمي واي واحد كستو مر الويرات مريسي واحد كستو كدا الويرات كدا يسيسي وناكسنا دان راي هاد اسبت اللهين وحانو دن وبحية كان وحانو دن ولا قاعد مركا بريتشانس كحر الله إذا حفظه عافيمادنا هاي سيو هذنكو أنفع درسيغاس halkaasi hayno joogo daruusta kale intaas kaga imaanino wabillahi tawfiiq